السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا رفيق أكاديمي فضلا هذا القناة كعسبتاي سبسكرايب صار أو شير جري عشر هذا سي أي دد بدن وجاران عشر كنا ما أنت وحكوا السبسين هاي فيوزيشي وحلي هذا ميلي هوري أنا سوق هذا وكاريبو نا udhow ama agtiisa karibu na oo macnaheedu yahay u dhow ama agtiisa. Jumladii aan ka abuuray karibuna meelaha koowaad ee karibuna waa watoto wako karibu na nyumba yao. Caruurta waxay joogaan gurigooda agtiisa. Caruurta waxay joogaan gurigooda agtiisa. Meelaha labaad waa juu ya oo korkiisa juu ya korkiisa ama korkeeda. Jumladii aan ka abuuray juu ya waa kitabu kiko juu ya mesa. Kitabu kiko juu ya mesa. Buugga wuxuu saaran yahay miiska korkiisa. Buugga wuxuu saaran yahay miiska korkiisa. Kitabu kiko juu ya meza oo buugga wuxuu saaran yahay miiska korkiisa. Meelaha saddexaad waa ndani ya oo gudihiisa. Ndani ya gudihiisa. Jumladii aan ka abuuray meelaha saddexaad ee ndani ya waa watoto au mtoto ako ndani ya boxi. Canuga wuxuu ku jira boxka gudihiisa. Mtoto ako ndani ya boxi. Canuga wuxuu ku jira boxka gudihiisa. Mtoto ako ndani ya box. Canuga wuxuu ku jira boxka gudihiisa. Meelaha afraad ayaa kando ya oo geeskiisa ama dhinaciisa. Geeskiisa ama dhinaciisa. Jumladii aan ka abuurinay waa mti uko kando ya nyumba. Geedka wuxuu ku yaalaa guriga dhinaciisa ama guriga geeskiisa. Mti uko kando ya nyumba. Geedka wuxuu ku yaalaa guriga dhinaciisa. Meelaha shanaad waa katikati ya oo laba dhexda ama dhexda. Laba dhexda ama dhexda. Jumladii aan ka abuuray meelaha katikati ya waa paka analala katikati ya wasichana. Bisada waxay jiiftaa gabdhaha dhexdooda ama gabdhaha laba dhexdooda. Paka analala katikati ya wasichana. Bisada waxay jiiftaa gabdhaha dhexdooda. Meelaha lixaad waa chini ya oo hoostiisa ama hoosteeda. Chini ya oo hoostiisa ama hoosteeda. Jumladii aan ka abuuray ama sentensiga aan ka abuuray waa paka analala chini ya kiti. Paka analala chini ya kiti oo bisada waxay jiiftaa kursiga hoostiisa. Paka analala chini ya kiti. Bisada waxay jiiftaa kursiga hoostiisa. Meelaha toddobaad waa mbele ya oo hortiisa. Mbele ya hortiisa ama horteeda. Jumladii aan ka abuuray meelaha toddobaad ee mbele ya waa mzee ako mbele ya gari. Odayga wuxuu taagan yahay gaariga hortiisa. Odayga wuxuu taagan yahay ama duqa wuxuu taagan yahay gaariga hortiisa. Mzee anasimama mbele ya gari. Odayga wuxuu taagan yahay gaariga hortiisa. Meelaha sideedaad waa nyuma ya oo gadaashiisa ama gadaasheeda. Geedka gadaashiisa. Msichana anasimama nyuma ya mti. Gabadha waxay taagan tahay geedka gadaashiisa. Msichana anasimama nyuma ya mti. Gabadha waxay taagan tahay geedka gadaashiisa. Fadlan haddii aad fahantay cashiradan ka jawaab su'aalooyinka soo socdo. Jooji muuqaalka ee su'aalooyinkan ka jawaab. Kadibna waxaad ogaan doontaa gadaal waxaan ka tusi doonaa jawaabihii su'aalooyinkan shanta gadaal ayaan ka tusi doonaa. Su'aasha horeysa waxay leedahay panya ameingia dash shimo. Jirka wuxuu galay dash
alafu god. Mji wa Garissa uko dash mji wa Kisumu. Magaalada Garissa waxay ku taalaa dash magaalada Kisumu. Viatu vyangu. Jawabihii swalooyinkana waa kwani panya ameingia ndani ya shimo. Mji wa Garissa uko mbali na mji wa Kisumu. Viatu vyangu viko mvunguni mwa kitanda. Ndege ametua juu ya mti na nimeketi karibu na rafiki yangu. Muuqaalka jooji oo waxaa isku daydaa in aad jumlad ka abuurta meelayaasha afarta ee ku reebay meesha shaashada. Baina ya, ndani ya, karibu na, nje ya na chini ya. Adigoo adeegsanaya baina ya, ndani ya, karibu na, nje ya iyo chini ya, waxaad abuurtaa jumlad. Cashirkeena halkan ayuu ku egyahay. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani.